shirkan oo diiradda lagu saarayay qaybsiga kheyraadka qaran ee biyaha ayna ka qayb galeen wasiirada biyaha iyo tamarta ee dowlad goboleedyada, wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo agaasimayaasha wasaaradaha biyaha tamarta heer federaal, khubaro la taliyayaal iyo howlwadeeno ka tirsan wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed ayaa faahfaahiyay ujeedka shirka iyo waxyaabaha lagu lafagurayo. shirarkii dhacay ee kii saddexaad, kii labaad iyo kii koowaad waxyaabihii ka soo baxay ayaa maanta wuxuu noqon doonaa insha Allah in conclusion ama isku darid la sameeyo iyo gabagabo. Istaraatiijiyaddu waxay ku dhowdahay istaraatiijiyadda biyaha ee dalka lagu hagi lahaa waxay ku dhowdahay gabagabo. waxaanu soo saari doonaa insha Allah marka ugu xiga shirkan wixii ka dambeeya oo socon doona 3 cisho maanta uu furmay bari iyo saa dambe waxaanu soo saari doonaa draftigii ugu horeeyay ee istaraatiijiyadda. wasiir ku-xigeenka tamarta Hirshabeelle Cabdiladiif Maxamuud iyo wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug Maxamuud Axmed Kaarshe oo ka hadlay madasha ayaa sheegay in biyo la'aanta ka jirta dalka ay qayb ka tahay baahida dhinaca amni ee dalka loona baahan yahay in laga faa'iideysto shirkan. wasaaradda federaalka uga mahadcelinayna inay doorkan qaadatay annagana iyo dowlad goboleedyada kalena waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iideysan doono aan qayb weyn ka noqon doono fulintiisa aan wasaaradda inaga support gareyn doonto ayadoo u maraysa hay'adaha na taageeraba inay naga taageerto in aan yeelano guidelines oo local ah state level. shirkan oo loogu magac daray maalinta furitaanka shirka ansixinta yoolalka istaraatiijiyadda ayaa waxaa si wadajir ah uga qayb galay wasiirka tamarta Soomaaliya Xasan Cabdi Nuur, wasiir dowlaha tamarta Shukri Maxamuud Afrax iyo Daahir Cabdi Cabdulaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta xukuumadda federaalka Soomaaliya, kuwa oo si wadajir ah u sheegay in wasaaraddu ka shaqeynayso taabagelinta waxyaabaha ka soo baxa dhamaadka shirkan. kaliya waxaan u nimid in wixii socday hor loo sii wado inta waqtiga ilaahayna gaarsiiyo. marka aad iyo aad u mahadsantihiin wasiiradana waa salaamaya noo soo safray oo halka yimid. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استراتيجيتني waxa ay ahayd mid la isla soo fahmay dhammaan dhinacyada ay qusayso oo idinku aad ku jirtaan oo aad ka mid tihiin, taasoo noqotay mid ku salaysan xanaan hoos kor ka dhis ah bottom up process la yiraahdo, isla markaana loo qoray qaab siinaya taageero togan horumarinta biyaha qaybta biyaha. maalmaha soo socda waxay wasaaraddu in soo bandhigi doontaa hadduu ilaahay idmo dokumentiga qabyo qoraalka istaraatiijiyadda si loo qorsheeyo ansixinta yoolalka istaraatiijiyadda iyo in dib u eegis dhammaystiran iyo xaqiijin farsamo lagu sameeyo istaraatiijiyadda qabyada ah. Maxamed Nuur Maxamed Abuukar, warbaahinta qaranka, Muqdisho.